بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka ee doctor Minow Dabiib Yaqaan. Caawa waxaynu sii wadaynaa barnaamijkeenii aynu hore u bilownay ee ku saabsanaa dhiigkarka. Dhiigkarka waxaynu niri inuu wajiyo kala duwan leeyahay. Markuu dhiigga cadaadiskiisa kaco ayaan laga hadlaa. qiyaastii la rabay oo aan hore usoo sheegnay markuu la arko ayaa leeyahay qofka dhiigkar ayaa ku dhacay. Waxaana habboon qofka 18 sano markuu gaaro inuu 2 sano mar isbaaro 39 iyo wixii ka sareeyana ama 40 iyo wixii ka sareeyana in uu isbaaro ugu yaraan sanadkiiba mar haddii dhibaatooyin kalena ay jiraan ama qof dhaxaltooyo u leh dhiigkarka oo reerkiisa hooyadiis aabihiis walaalihiis ay qabaan qofka isagana inuu badiyo sababtoo ah waxa imaan karta mid oo maaragtay reerkii qaas ah ay ku badan karto. maanta waxaynu ka hadlaynaa dhibaatooyinka uu keeni karo. bal marka hore qofka si fudud ayuu isku cabiri karaa markuu dhakhtarkiisa u tago ama qalabkii ayuu soo gadan karaa guriga dhigan karaa ayuu isbaari karaa. marka dhiigkarka hal mar qofka lagu arko kaliya go'aan laguma gaari karo. marka la arko inuu haddana qofka nasto oo xoogaa kadib 5 daqiiqo 10 daqiiqo kadib lagu celiyaa qofkii oo degan in la cabiraa ayaa wanaagsan. hal maalin kaliya waxaa dhici karta markuu maaragtay wixii qofka ku cusub yahay si loo hubiyo in fadhiyo kala duwan in lagu cabiraa dhiiggii. hadduu mar kasta kacsan yahayna marka lagu caddeeyaa in la yiraahdo qofka dhiigkar ayuu qabaa. markuu yimaado dhiigkarka maxaa la qaban karaa? qofka waxa uu sameyn karo si dhiiggiisii uusan u kicin oo caadi ugu soo noqdo maxay tahay waxyaabaha uu sameyn karo? waxyaabaha uu sameyn karo kow marka hore habka uu u nool yahay qofka inuu wax ka bedelo ayaa wanaagsan. haddii fadhigiisa uu badan yahay inuu qofka uu ku daro jadwal jimicsi ah jirka maaragtay noloshiisii inuu ku soo daraa inuu ugu yaraan xataa dhowr maalmood 5 maalin 3 maalin 4 maalin intuu awoodi karo inuu ugu yaraan 20 daqiiqo socod boobsiis xataa uu sameeyaa. waxay keenaysaa taa inuu qofkii nafiso oo maaragtay maskaxdiisa ay u degto oo dhiiggiina uu maaragtay cadaadiskiisii uu ka yaraado ayaa dhici karta. qofka inuu ku dadaalo culayskiisa inuu yareeyo culayska zaa'idka markuu yimaado waxaa qofka u nugnaanayaa inuu dhiiggiina kaco. mar alla marka dhiig cadaadiska mar alla markii qofka culayskiisii hoos u dhaco oo culays lumiya waxay keenaysaa in dhiiggiina cadaadiskiisii uu yaraado oo dhiigkarkiina qofkii uu ka yaraado. marka jimicsiga si culayska qofka uu u yaraado in cuntada maaragtay uu qiyaas ka qaato si maaragtay culayskii oo kale sidoo kale culayskiisa uu yaraado waa loo baahan yahay. waxyaabaha maaragtay cuntada aan faa'iidada cuntada maaragtay caafimaadka wanaagsan uu ku habbooneen sida cuntada maaragtay la shiilo in qofka uu iska yareeyo inuu iska yareeyo qofka cusbada inuu iska yareeyo way wanaagsan tahay. waxaa kaloo wanaagsan qofka inuu qaato cuntada ay ku badan tahay potassiumka kuwa oo laga helo khudaarta iyo dhirta iyo maaragtay miraha faakihaadka in uu qofka isticmaalo fruitka ama maaragtay vegetables ayaan ka wadaa. marka qofka inuu cuntadiisa uu ku soo daraa waxyaabaha cagaaran khudaarta khudrawaadka iyo miraha faakihaadka inuu isticmaalo sida wuxuu cuni karaa moos tufaax liin waxyaabo kala duwan oo maaragtay miraha kamid ah ayuu isticmaalaya faakihaadka sababtoo waxaa ku jira magnesium iyo potassium kuwa oo cadaadiska u wanaagsan. sodiumta cuntada lagu darayo siiba cuntada gasacadaysan oo lasoo muddo badan inay jirto lagu maaragtay lagu ilaaliyay waxaa ka buuxa cusbadaas waxaa ka buuxa cuntadaas cusbo badan ayaa ka buuxda. marka waxaa habboon in la iska yareeyo cuntooyinka maaragtay lasoo diyaariyay oo maaragtay cusbada badan ay ku jirto ma wanaagsana. marka cunto marka cusub inuu qofka cuno inuu ku dadaalo ayaa habboon.
si marka maaragtay ay u yaraato cusbada jirkiisa soo galayso. iyo saliidda maaragtay saliidaha qaarkood maaragtay waxaa habboon saliidda ka timaada dhirta sida zaytuunka oo kale ama macsaradoo kale, kuwa ayaa wanaagsan. marka inuusan isticmaalin cuntooyinka gasacadaysan waa waxyaabo muhiim ah. waxaanu hadda ilaa ka hadlaynaa habka qofku u nool yahay. cuntada caafimaadka leh, dheelitiran, cunto dheelitiran oo noocyada kala duwan cuntada ay ku jirto, carbohydrate xogaa yar inuu ka cuno, vitamin inuu wax ka cuno, inuu wax ka cuno maaragtay proteinkii qiyaas inuu ka qaato, maaragtay mineralkii macdanihii inuu wax yar ka qaato, dufankii inuu xogaa ka qaato, wixii dhan waa loo baahan yahay. biyo ku filan inuu qaato qofkii. marka cunto miisaaman oo dheelitiran oo caafimaadkiisii wanaagsan si uu qaato, qiyaasta cusbadana ay yaraato, cuntada gasacdaysanna inuu iska yareeyo. midda labaad inuu qofka jadwal maaragtay jimicsi ah inuu noloshiisii kusoo biiriyo. waxaan horan dhahnay ugu yaraan 20 daqiiqo maalintii inuu qofka socod boobsiis uu ku darsado noloshiisii, inaysan noqon keliya waqti la hurdo, waqti la shaqeeyo, waqti la fadhiyo, waqti baabuur la saaran yahay keliya. hadday noloshu ku dhammaato waxay noqonaysaa qofkii in uu u nuglaado inuu dhiigkarkii ku dhici karo. si markaa aynu u imaanin inuu qofka dhidiska keena, socod sameeya oo orod sameeya, rucleeya, qof walba tabartiisa wuxuu u samayn karo, qofkii dabaalan karo, qofkii socon karo, kulli waa loo baahan yahay. marka waxyaabaha ayaan maaragtay oo qofka qaban karo ayaanu maanta kaga baxaynaa barnaamijkeenii. intaa hanoo joogo barnaamijka xigta waxaynu ka hadli doonaa dhibaatooyinka uu keeni karo dhiigkarka iyo sidii wax looga qaban lahaa. inta barnaamij kale oo caafimaad doctor Minow dabiib yaqaana aynu ku kulmayno waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.